walbo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan kaga hadli doono wararkii ugu dambeeyay ee wadanka Ethiopia. Qodobada aan ku soo qaadan doonana waxa kamid noqon doona warar la xiriira dhinaca dagaalada waqooyiga iyo waxyaabihii ugu dambeeyay. Waxa kale oo aan idin soo gudbin doonaa wada hadallada u dhaxeeya kooxda TPLF iyo dawladda federaalka Ethiopia oo ay dhexdhexaadinayaan midowga Afrika goob joogayaal ay ka yihiin beesha caalamka iyo qaar kamid ah wadamada reer galbeedka iyo waxyaabihii dhacay ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa iyada. Muuqaalkan saaxiibadiina la sii wadaaga waadna ku mahadsantihiin sida aad uga qayb qaadataan mar walba barnaamijyadan halkan ku soo gudbin. Waxa xusid mudan in wararkan halkan soo galino ay yihiin wararaan ka soo xiganay warbaahinta caalamka iyo tan maxalliga ah ee gudaha wadanka Ethiopia iyo sidoo kale falanqeeyaasha arrimahan wax ka qoray ama wax ka yiri ee warbaahinta caalamka u waramay. Haddaba muuqaaladan ama wararkan ma aha kuwa dhinaca u janjeera ee waa kuwa dhexdhexaad ah oo sheegashooyinka dhinacyada iyo waxyaabaha ay sheegteen iyo xogaha laga helay kaliya aan halkan ku soo gudbino. Sidaas darteed saaxiibada nagu xiran waxaan u sheegaynaa inaysan wararkayagu dhinacna ahayn kuwa u janjeer. aan ku bilowno magaalada caasimadda oo ah wadanka Koonfur Afrika ee Johannesburg waxa ka socda wada hadallo u dhaxeeya dawladda federaalka ee wadanka Ethiopia iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socda kooxda TPLF. wada hadalladaasi ayaa dhowr maalmood qaatay waxaana qayb ka ah ama hogaaminaya wada hadalladan midowga Afrika. Waxa sidoo kale goob joogayaal ka ah urur goboleedka IGAD qaar kamid ah ururada caalamiga iyo sidoo kale jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo dawladaha reer galbeedka. Dhammaan dhinacyadani waxay doonayaan inay dhinacyada iska soo horjeeda ku cadaadiyaan in dagaalka la joojiyo, xabad joojin degdeg ah iyo sidii gargaarka bini'aadamtinimada lagu gaarsiin lahaa dadka waqooyiga wadanka Ethiopia ay waxyeeladu ku soo gaartay sanadihii la soo dhaafayna colaad aan kala joogsi iyo kala go' lahayn ay ku socotay. Dhibaatadaasi iyo caqabadaas ayaa la doonayaa in xilligan la soo afmeero. Dhinacyada wada hadallada waxa uu matalaya xubno dhowr ah oo mid walba uu isleeyahay waa kuwa aad ku kalsoon tahay ama wax kaaga soo qaadi kara xaaladda hadda jirta iyo waxyaabaha ee la isku hayo. Si gaar ah dawladda federaalka Ethiopia waxay u xulatay mas'uuliyiin deegaanka Amxaarada ka soo jeeda ama aragti ahaan aad uga fog marka la fiiriyo dhinaca TPLF. waliba hogaamiyaha wada hadalladan xubnaha dawladda uga qayb galaya waa ra'iisul wasaare ku-xigeenka wadanka Ethiopia. inkasta oo uusan wali wada hadalladaasi la xaqiijinin in uu ka qayb galayo markii horena uu ahaa ama uu kamid ahaa dadkii ka haray wada hadallada ee magaalada Addis Ababa ku sugnaa xilli wada hadalladu ay bilowdeen. waxa kale oo uu hogaaminaya wada hadallada dhinaca TPLF Getachew Reda afayeenka kooxda TPLF iyo sidoo kale taliye hore oo ciidamada militariga wadanka Ethiopia haddana kamid ah ragga la aaminsan yahay in istiraatiijiyadaha ay ku dagaalamayso kooxda TPLF ay ka shaqeynayaan. haddaba wada hadalladaasi dhowrkii maalmood ayay socdeen waxaana la filayaa maalinta berri ah in uu warmurtiyeed ka soo baxo ama idhaahdee axadan in uu ka soo baxo warmurtiyeed. haddaba marka la fiiriyo waxa soo baxayo xogo sheegaya in ay adag tahay in dhinacyadu qodobada ay soo hordhigeen la isku raac. waliba waxa jira warar sheegaya in uu wada hadalladaasi ay burbureen amaba ay qarka u saaran yihiin in ay burburaan. xogo kala duwan oo aan ka helay caasimadda Koonfur Afrika waxa ay sheegayaan in waxyaabaha ay dhinacyadu soo bandhigeen ama qodobada ay soo hordhigeen oo aad u adag tahay in maslaxada iyo waxyaabaha la doonayo in la gaaro. waliba dawladda federaalka Ethiopia hadda marnaba iyadu ma doonayso kali ana waxay iska jeedinaysaa cadaadiska wadamada reer galbeedka ee waxay doonaysaa dagaalku inuu sii socdo kooxda TPLF-na ay dagaalkan si iskooda looga adkaado ama ay soo dhiibaan. qodobka ugu muhiimsan waa in xabadda laga joojiyo sidoo kale tan gargaarka bini'aadamtinimada loo furo adeegyada asaasiga ahna dib loogu soo celiyo waa doonista TPLF. doonista dawladda federaalka Ethiopia waxa qodobka koobaad u ah in ay hub ka dhigaan kooxda TPLF isa soo dhiibaan. waana halka la isku mari laayahay hadda waxa la isku dayayaa cadaadis fara badan oo la saarayo dhinacyada in ugu yaraan bal wuxuun la isku afgarto oo meeshaasi waxa ugu yaree ka soo baxa
ay xitaa xabad joojin noqoto laakiin ila xogogaala ayaa sheegaya inay adag tahay arintaas iyada in xal laga gaaro amaba la soo gabagabeeyo oo lagu heshiiyo wax ay dhinacyadu isku afgaran karaan waxa kale oo ay dhinacyadu sheegayaan inay saameyn weyn ku leedahay deegaanka Amxaarada iyo sidoo kale dawladda Eritrea waxaana la leeyahay kamaba goodo dhinacyadan la soo diray wada hadalay kaliya maaweelo ay meesha u yimaadeen inta haddaan uga gudubna dhinaca wada hadallada iyo culayska ka jira maanta ee ah in waxa dhici doona aan la garanaynin dhinaca dagaalada aynu aadno dagaalada waqooyiga wadanka Ethiopia ka socda saddexdii bari ee ugu dambeysay kooxda TPLF waxa ay sameeyeen dagaalo ay ku soo rogaal celinayeen laakiin haba yaraatee wax isbedel ma ayna sameeyeen inkasta oo magaalooyinka qaar ay dib u qabsadeen oo dagaalka marka la fiiriyo meelaha uu ka socdo ama magaalooyinka hadda uu ka socdo ay kooxda TPLF si weyn isooga soo difaacday dhinacyada haddana sidaas ay tahay isbedel ma jiro iyaga ayaana qirtay barnaamijkii hore aan idin soo gudbinay ku sheegay in dagaalka magaalooyinka iyo foolka looga itaal roonaaday wixii hadda ka dambeeyana ay sameyn doonaan dagaal jabhadayna oo dibgalayna oo ku dhufo oo ka magaalooyinka ay qabsadeen aysan waxba u tari doonin ciidamada huwanta qubuurahoodana laga dhigi doono dhulka deegaanada Tigrayga waa sida ay hadalka kooxda TPLF Teresa Warada oo ah taliyaha ciidamada TDF ta sida uu sheegay waxa kale oo jirta in kooxda TPLF ay iska caabin xoog badan ilaa iyo maanta ilaa iyo shalay ay ka sameeysay marka la fiiriyo dhinaca koonfurta iyo galbeedka waqooyiga deegaanada Tigrayga halkaas oo dagaal xoog badan iyaga iyo ciidamada Eritrea oo ku dhaxmaray dhinaca kale marka la fiiriyo waxa jira oo dawladda federaalka iyo ciidamada kale ee ay iskaashanayaan ay dagaal xoog badan ka wadaan dhinaca koonfurta Tigrayga oo magaalada la yiraahdo Adawa iyo magaalooyin kale oo ku xeeran waxa ka socdo dagaal culus laakiin ma jiro dagaalka laftiisa marka la fiiriyo kala awood roonaansho inkastoo kooxda TPLF ay guulo sheeganayso mana aha guulahaasi kuwa la xaqiijin karo war ka soo baxay dawladda iyo ciidamada huwanta ma jiro marka la fiiriyo ciidamadan waxay isku dayaan in ay horay u socdaan oo magaalada caasimadda iyo magaalooyinka kale ee ku dhow iyo dagaalka ay horay u wadaan laakiin kooxda TPLF iska caabin xoog badan ayay kala kulmayaan wada hadaladii marka caqabad ayay tani ku noqonaysaa mar haddii uu dagaalkii xawli ku sii socdo xiisaduna tahay mid taagan dagaalkuna hadda waxa uu marayaa ciidamada huwanta oo dawladda federaalka Ethiopia iyo kuwa Eritrea iyo dhinacyada ay kaashanayaan oo dagaal xoog badan wada iyo kooxda TPLF oo hadda jilibka aasatay dhowrkii bari la soo dhaafayna isbedelkii ay sameeyeen iyo magaalooyinka ay isaga baxayeen iyo goobihii ay banaynayeen qaar ka mid ah dib u qabsanaya aad moodana inay isku dayaan bal inay difaaca xirtaan inta wada hadalladaasi warkooda uu soo baxayo qolyahana waxay doonayaan inta wada hadalladu socdaan inay cadaadiska ku badiyaan kooxdan ayna ka takhalusaan labada dhinac biyo hoostood ayay iska arkaan xaaladuna wali waa mid cag tan iyo kulanti dambe waad mahadsantiin